kulanti wacan oo wanaagsan daawada haantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warkii TV-ga Universal oo habeennimadii caawa idinkaga iman doona xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idin la socodsiin doona hadii Allah uu wadalayay maanigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen qodobada ugu waaweyn ee warkayga caawa idigu haynana waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa safar aan hore loo sii sheegin waxa uu ku tagay dalka Saudi Arabia safarka madaxweynaha Farmaajo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli وخلاف حوق وكدح جرو الدولة الدحية ولي بالدولة قبل اليدا وفدقي بلانه قايل مرشح جقد مدحوينه حزب معارض كوطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومدوين كي يقدم بيه سفر وقوم مقراه قبل الله قلبيت كالسومالي لان ايا ددوينها كل قن دقمده تقوى تشالي iyo waliba tuulada geed ballaar waxa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen deegaanadaasi waxaanay muujiyeen in xisbiga macaaridka wadani uu cod ka heli doono deegaanadani nabadoonnada Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa waxa ay kaga soo horjeesteen heshiiska madaxweynaha Puntland uu la soo galay shirkadda DP World ee lagu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso qodobada wararkayga caalamka daawada lidga haynana waxa kamida nin Falastiiniya ayaa ku dilay daanta galbeedka 3 Israa'iiliin halka uu mid kalena uu ku dhaawacay kadibna waxa la toogtay ninkii geystay falkaasi dilka iyo dhaawaca intaas waa qodobadeedii warka qodobadaas iyo kuwa kala faahfaahsanba ku soo dhawaada kulanti wacan mar kale daawada ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu safar aan hore loo sii sheegin ku tagay dalka Saudi Arabia safarka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaaf xoog leh ka dhax jiro dawladda dhexe iyo waliba dawlad goboleedyada oo ku kala qaybsan talaabada dawladda dhexe ay ka qaadatay mowqifka khilaafka baan ee u dhaxeeya dawladaha khaliijka Cabdi Casiis Ibrahim Axmed oo ka soo diray faahfaahinta warkani magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta u ambabaxay safar dhinaca wadanka Saudi Arabia waxa madaxweynaha safarkaasi ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya madaxweynaha ayaa la sheegay in safarkiisu ku tagayo wadanka Sacuudiga oo la xiriiro xiriirka cilaaqaadka dhinaca ganacsiga amniga iyo arrimo kale safarka madaxweynaha waxa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa maanta safar shaqo u aaday dalkaasi Saudi Arabia oo halkaas kula kulmi doono boqorka dalka Saudi Arabia boqor Salman bin Abdul Aziz boqoshadan labada casho waa mid shaqo oo daba joogta boqoshooyinka hore madaxweynaha u tagay dalkaas Sacuudiga iyo Soomaaliyana xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu kala hadli doonaa sidii loo dardargelin heshiisyadii hore loo gaaray iyo ballanqaad oo ay ka mid tahay sidii Soomaaliya looga saacidi lahaa dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka maalgashiga iyo dhanka dib u dhiska dalka sidoo kale waa la socotaan oo Sacuudiga waa dal muhiim u ah Soomaaliya arrimaha dhaqaalaha kale waxa ka mid ah sidii xoolaha Soomaaliya halkaas loogu beecgeyn lahaa Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV-ga Universal magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu xariga ka jaray jaamacadda Shifalanteeda magaalada Burco Cali Daahir Maxamed Boos oo ku sugan magaalada Burco ayaa faahfaahinta warkani soo diray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa xariga ka jaray jaamacadda Shifa laanteeda magaalada Burco munaasabad kooban oo loo sameeyay xariga jarkaasi ayaa ka dhacday xarunta jaamacaddaasi ay ku yeelanayso magaalada Burco ugu horeyn waxa ka hadlay munaasabada madaxa suuqgeynta ee jaamacadda Shifa laanteeda magaalada Burco injineer Maxbuub Xuseen Ismaaciil iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Shifa Professor Cabdisalaam Yaasiin kuwaasoo ka hadlay qiimaha ay jaamacaddani u yeelanayso bulshada gobolka Togdheer iyagoona xusay inay soo kordhiyeen laabab casri ah tahay 26 bishii 9aad 2017 aan xariga aanu ka jaraynaa jaamacadda Shifa University campuskeeda Burco
oo runtii ah jaamacad leeyihiin ama ay aasaaseen muwaadiniin iyo ganacsato u dhalatay Somaliland. jaamacadana magaceeda Shifa la yiraahdo reermigu ay geela oran jireen shufo ku afsaar oo shar kuma helo reer Burco ay Shifa ay ku afsaaraysaa oo sharna insha Allah helimayno khayr mid u keenaysa tayana waa keenaysaa oo haddii ninkii timirta loo dhiibay timirtii hore badab loo waa nimaan timirta garanayn buu haa faraqa ku duubto markii ninkii kale timirtiisu yiri war baasha cun dab uma baahnide uu macaansaday dhadhankeedii iyo tayadeediiba wuu ka yaabay insha Allah tayadu jaamacadu way nagu yara farabateen oo timirtii hore badab loo noqon maysee tayadu intay keenay doontaan insha Allah aad iyo aad u qiimo badan jaamacadda waxa aan oran karnaa dadkii aqoon saaxiibka ahaa ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku suntanaa aqoonteeda inoo fureen oo Cabdisalaan Yaasiin iyo kamid yihiin ragga la midka ah laan aqoontu halkay ka bilaabataa reer Burcay waanaanu kaga faanaa reer Soomaaliland inteeda kale waxa runtii farxad baa maanta inaanu kaga faa'iideysanay jaaniskan oo madaxweyne ku-xigeenku u yimi safar shaqo u yimi magaalada oo khuseeyo GBLG-gii inaanu kaga faa'iideysano inuu jaamacadana loo furo. ugu dambeyntii waxaa ka hadlay munaasabada xarika jarka jaamacadda Shifa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo amaanay doorka ay jaamacaduhu ku leeyihiin kobaca waxbarashada Somaliland. waxaan hambalyeeyaa bogaadinayaa ama aan u ducaynayaa jaamacadda cusub ee Shifa University campuskeeda Burco oo maanta nasiib u yeeshay inaan kula kulmo anoo safar shaqo gobol ku imiday inaan xadhiga uga jaro runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa madaxda iyo boardka iyo ciddii jaamacadda maartay ka soo aasaastayba muddo badan baynu soo rafaadanay muddo badan baynu waddanka soo yayabnay muddo badan baan wax ka shaqaynay si qarankeena qaran taabagalo dawlad agaag joogsta noqdo iyo tayo jaamacadaheenu ama markay doona haadaan waxaan maanta inu maraynaa waqtiga horumarka mar haddaynu joogno waqtiga horumarkan waxaynu u baahan nahay guud ahaan waxaynu u baahan nahay inaynu ku tartarno tayo iyo wanaag. cali daahir maxamed boos TV-ga Universal Burco. wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa ay gaadheen magaalada Garowe waxaana ka qayb gali doonaan shir lagaga hadlayo mideynta nidaamka wasaaradaha maaliyadda dawladda Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada kaasi oo ka dhici doona magaalada Garowe. Muslim Aydrus Xaaje ayaa ka soo diray faahfaahinta warkani magaalada Garowe. wafdigan ballaaran oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ay ka mid ahaayeen wasiirada maaliyadda dawlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa waxay soo gaareen magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland. wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha Garowe ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ku-xigeenkiisa iyo madaxda wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland. wafdigan ayaa waxaa loo soo galbiyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyagoona ka qayb galaya shir looga hadlayo mideynta canshuuraha dalka oo isla maantaba ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland Cabdullaahi Siciid Caarshe Dhaqaaje ayaa soo dhaweeyay wafdigan uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda Soomaaliya. anoo ku hadlaya afkayga iyo afka golayaasha dawladda Puntland wakiilna ka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa sharaf maanta noo ah inay halkan noogu yimaadaan waftiga ballaaran oo heer qaran iyo heer dawlad goboleedyo ah. farxad bayna noo tahay inaan ku soo dhaweyno gurigoodii caasimadda Puntland ee Garowe. waxaan leenahay soo dhawaada farxad bay noo tahay inaad noo timaadaan. wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku ammaanay Puntland horumarka ay ka sameysay arrimaha ammaanka isagoona dhan kale ka hadlay muhiimadda shirkan maanta uga furmay magaalada Garowe. sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan isku nimaadno Garowe. kollayba aniga waxa weeye markii ugu horeysay Garowe maada weeyaan marka waa aniga fumi waa taariikh weeyaan runtii Puntland oo dhammaan maanta ay ugu horeysa balaayna raahday inaan oran mooyaan wanaagsan ilaa runta sheegaya waxaan laakiin dareemayaa mudane wasiir nabad baan dareemayaa halkan xukuumadda halhayskeedu waa nabad iyo nolol iyo nabad labadaba halkan aan dareemayaa runtii dhul degan oo qurux badan oo jawigiisu aad iyo aad u caafimaad qabo ayaan halkan ku arkaya hawaduna aad bay u fiican tahay waxa weeyaan shirkan aan isugu nimi
shirarkii aan isugu iman jiray maaliyadda wasiirada maaliyadda oo anigu aan ka ahay guddoomiye ayuu ka mid yahay. shirkii hore waxaan ku qabsannay muqdisho muddo iminka 3 bilood laga joogo. waxaan ku tala jiraa waxa weeye arrimaha maaliyadeed ee dalkan sidii aan wax uga wada qaban lahayn ee u midayn lahayn. kulankan ayaa noqonaya kiisii labaad oo isugu yimaadaan wasiirada maamul goboleedyada ee arrimaha maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo kulankan kii ka horeeyay uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kan labaad ayaa wuxuu ka qabsoomay halkaan oo xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. Muslim Cayduruus Xaaji Xirsi, wararka TV-ga caalamiga Universal magaalada Garowe. وهاجاك داود اللي وحنا كان نقول صوتان وركي عالم كون يقصوا قد من تي في يونيفرسال حرونته وكله مقالة هرجيسة ورك كله ورياش شيء النص صدريانا وحاج كميدا. iskuulkan oo ay dhisay dowladda Turkiga ayaa lagu wareejiyay hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya waxaana maanta xariga ka jaray mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiirka gaadiidka iyo duulista iyo safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdulle Jaale ayaa u sheegay telefishinka Universal in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in laga maarmo shaqaalaha ajaanibta halkana shaqooyinkaas loogu tababaro dhalinyaro Soomaaliyeed si ay u qabtaan. hadafku waa taas macnaheedu mar walba in anaga isku tashano asaaskuna waa goobtii aqoonta ka bilaabi lahayd oo iskuulkan ugu horeeyo marka runtii waxaan rajaynayaa in noqoto meel looga maarmo diilayna institutionkan ama buildingkan iskuulka u jeedid waxay fududeynaysaa in aqoontii shaqaalihii la sii kobciyo kuwa cusubna tababarro cusub loogu sameeyo marka waa midii ugu horeysay weey kuwa horena waa refreshment course ay ku qaadanayaan oo dib u cusboonaysiina waa ogsoontahay aqoon weligeed lama dhameeyo kuwa cusubna waa loogu bilaabay hadii la yiraahdo. ugu dambeyn wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyay kaalinteeda taageerada ay siinayso Soomaaliya. safiirka dowladda Turkiga ahna saaxiib wadanka Soomaaliya runtii saaxiib u ah oo xiriirka dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya aad u hagaajiyo kana dhaxdaro in xiriirkaasi mid hore u socdaa horumarkana nagala shaqeeya asagana sidoo kale aad ayaan ugu mahad celinaynaa. horumarka wadanka aad ka aragtiin maalin kasta meelaha la taaban karo ama jid ha ahaada ama isbitaal ha ahaada ama airport ama diyaarado dhinac kasta oo horumarka ah oo la tilmaamo aynan dowladda Turkiga lug ku lahayn ma jirto. Cabdinaasir Maxamed, telefishinka Universal magaalada Muqdisho. odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka Galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay cadaadiska ka joojiso maamulka Galmudug. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. kulankani maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho odayaashii waxgaradka ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxay kaga hadleen cadaadis ay sheegeen inuu la kulmayo madaxweynaha maamulka Galmudug. odayaashaas ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqeen inay joojiso cadaadiska ay ku hayso madaxweynaha maamulka Galmudug isla markaana ay la shaqeyso maamulka cusub oo dhawaan la yagleelay. odayaashaasi qaarkood ayaa waxay sidoo kale sheegeen in aqalka sare sababta loo dhisay ay tahay inay kala dhexdhexaadiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira. waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaasi oo halkaasi ka hadlay. aqalka sare oo la yiri waxay u taagan yihiin maamul goboleedyada iyo dowladda inay u dhaxeeyaan ma dastuurkiya meeshii lagu magacaabay laga tiray aawan 8 xubnood laga soo doortay Galmudug oo la yiri waa aqalka sare waxay ahayd waxay gobolku ku qaldan yahay inay ka hadlaan waxay ahayd wixii dowladdu ku qaldan tahay inay ka hadlaan haddii gobolkoodu qaldan yahay maxay u qaban waayeen haddii dowladdu qalad uga duushasay xaggay aadayaan leena waxaan maqasheen maamul goboleedka Galmudug ee madaxda ka yahay Axmed Ducaale Geele ee xaruntiisa ku gargaarka ah tahay cadaado khilaaf ayaa ka dhacay ayaga iyo federaalka dhexdooda khilaaf ayaa dhacay khilaafkaas laguma xalin si degan looma wajihin ee dowladda federaalka uma wajihin sidii dowladii khilaafkii gobolkeeda ka jira ee u xalisan jirtay abaabul weerar ku ah Galmudug
oo duminaya oo wax isdhaafaan waxaa la rabaa in lagu shaqeeyo maslaxad iyo caqli haddii wuxuu ay dagaal ku bilowdaan dagaalna ku dhammaadaan midho dhalkoodu wuxuu noqonayaa khasaaro sidaa daraaddeed waxaan leenahay arrintu dagaalay ku bilaabatay yaa dagaal lagu dhammayn ha lagu dhammeeyo maslaxad iyo wadahadal iyo is-afgarad oo cid walba cidda mas-uuliyadda ay ku leedahay dhibka jira inta lagala wada hadlo markaas meel laysugu imaan karo arrinta laysugu keeno dowladda federaalka oo ka tirsan madaxdeedu galmudug ay ka tirsan tahay melihin galmudug ha u roonaata melihin xaquuq aysan lahayn ha siiyeen melihin waxaan leenahay galmudug xaquuqda ay xaq u leedahay ha siiyeen uma baahna marka maanta galmudug politico iyo uma baahna kambeyn iyo dad cusub oo la geeyo waxaan leenahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarahaba gacanta ay ku leeyihiin oon raxmadda ahayn oo naxariis darrada ah ka soo celiyeenaan leenahay maxamed cabdinaasir ayaanle universal t v magaalada muqdisho aqoon kororsi lagaga hadlayay caafimaadka qoyska oo ay ka soo qayb galeen culimo awdiin kala duwan oo kala yimi deegaanada dhulka Soomaalidu ay degto ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kulankaasi soo qaban qaabisay hay'adda UNICEF iyo waliba wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Cabdicasiis Ibrahim Axmed oo ayaa mar kale warkani ka soo diray magaalada muqdisho tababarkan ayaa waxa uu furmay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed waxaana tababarka lagu baranayay wacyigelin ku aadan caafimaadka qoyska oo la siinayay culimada diin ka kala yimid qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho waxaana soo qaban qaabisay tababarka wacyigelinta ah hay'adda UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya wacyigelinta ayaa lagaga hadlayay dhibaatooyinka caafimaad ee dhinaca qoyska gaar ahaan dhibaatada haweenka ay kala kulmaan gudniinka fircooniga wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka qoyska xukuumadda Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen ayaa ugu horeyntii furay aqoon kororsigaasi wacyigelinta ah seminar loogu talagalay in lagu wacyigeliyo cudurradaasi jira hortagooda diinta maxay ka qabtaan run ahaantii waxaa maanta ugu yeeray halkan ay tahay in runtii aad roolka aad ku leedihiin in aad kaga qayb gashaan runtii ma tihiin dad oo waxbarasho meesha loo keenay waxaa la rabaa aqoontiina laftirkeeda in laga faa'iidaysto maadaama diintu laftirkeedii ay tahay diin muslim ah hadda laftirkeeda dhaqaatiir fara badan oo medicine ama dhaqaatiir geologist ah dhaqaatiir fara badan ay hadda ogolaadeen laftirkooda inay islaamaan diinta bartaan si ay u ogaadaan faa'iidada ku jirto marka inta culamaadu diinkan halkan isku timidin kuma yeelin halkan in aqoon la idin baro waxoo dhan diinteenay ku jiraan run ahaantii waxaa la idinkugu yeeri wax kale ma ummadda weli diinta aan si fiican u fahamsanayn aan aqrin karin u baahan marka sida hadda la sheegayay aamine iyo ninkeeda oo kale oo u baahan in loo sheego xubnaha culimada diinka ayaa dhankooda goobta ka jeediyey aragtidooda ku aadan caafimaadka qoyska ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya Sheekh Maxamed Aadan Khayrow marka gudniinkaasi inuu wadanka mamnuuc ka yahay maxay ahayd culimadii dalka shirarka aan u qabanay iyo wasaaradii iskaashaday baa fatwadaas soo saaray waana faafinay ilaa xad walow aan isleeyahay waxay u baahan tahay in maxay ahayd cod dheer weli lagu baahiyo dalka gudihiisa lagu baahiyo arrintaas si loo wada qaato maxaa yeelay weli meelaha qaar way ka shaqaynaysaa si arrintaasi ay u dabargo'do waa in arrintaasi horta meel la saaraa Cabdicasiis Ibrahim Axmed okay TV-ga Universal magaalada وهاجاك داود اللي halkan nagala socotaan wararkii caalamka oo idiga soo gudbino TV-ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wararka kale wariyaashaydu inoo soo dirayaana waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada uu imaaday magaalada Muqdisho runtii magaalada Muqdisho waa caasimadii wadanka waa saldhigga oo ah dowladda federaalka oo aan ka tirsanahay waa beeska ugu weyn oo deeq-bixiyaasha iyo beesha caalamka waxaan halkaan u imid shalay iyo maantana aan ku mashquulsanaa insha Allah taala laba maalmood oo kalena aan ku sii darsi doonaa inaan qadiyadda Hirshabeelle ka harinta aan ka harnay maamulada dhibaatooyinka la hor yaala
saakulaynta aan u baahannahay jidadka in la furo arrimaha amniga inaan u soo bandhigno dhammaan muxuu ahay inta arrintaas aan isleenaha waxbay nagala qaban karaan si aad u wanaagsan oo muxuu ahay fiican ayayna arrintaas noogu bilaabatay waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay waqti dhow prime ministerka uu imaan doono asagana sidoo kale meesha ay wax marayaan la socodsiin doonaa raalli ayaana ka nahay in alle intii aan la kulannay iyo wixii aan kala kulannay madaxweyne ayaa ka hadlay khilaafka ka jira hogaanka ugu sarreeya maamulka galmudug waxa uu ka hadlay baaqi uu soo jeediyey madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego hadalka madaxweyne madoobena waa ku jirtay aad ayay u sahlan tahay in wax la geliyo laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso waa la socotiin marxaladaa la soo maray waa la socotiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wadahadalka iyo walaalaynta sunna wal jamaaca ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaasi khusayso in cagta loo dhigo la qaboojiyo xiisadda wadatashi la geliyo ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay xiisadda siyaasadeed ee waddamada khaliijka iyo safaradii ugu dambeeyey uu ku tagay degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan arrinta xiisadda khaliijka runtii anigu inaan aad ugu sii dheeraado ma rabo horena waa uga hadlay laba shay bay u baahan tahay in wadatashi dowladda federaalka muxuu maamulada ay la samayso maamuladuna ay uga dambeeyaan dowladda federaalka arrimaha dibadda sida dastuurku qabo runtii waxaa la deeqa oo nagu filan dowladnimada kala dambeynta dastuurka qabyo ha ahaado ciladaha ku jiraano dib-u-eegid mataqaa lagu sameeyo laakiin juhdi badan oo soomaalidu markay dhinac walba ka fiirisay ee isla garatay inay saan taladeeda ay meeshaas dhigeen in la darajeeyo oo la qiimeeyo oo muxuu ahaa ii sheeg ilaa asagaa na kala xadaayo haddii cid walbaa hustay doonto dastuurka u fasiratana waa dhibaato zikriye maxamuud timacde universal t v muqdisho qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaridka ucid ee gobolka sool iyo buuhoodle ayaa waxa ay maanta sheegeen inay iska casileen xisbigaasi ucid kuna biireen xisbiga mucaaridka ee kale ee wadani maxamed shaqalle oo ku sugan magaalada laascanood ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray mas-uuliyiin xisbiga ucid xilal uga hayay gobolada sool iyo buuhoodle ayaa maanta iska casilay xilalkay u hayeen xisbiga ucid islamarkaana ay ku biireen xisbiga wadani xubnahan oo kale ah gudoomiyaha gobolka buuhoodle iyo gudoomiyaha garabka haweenka gobolka sool iyo mas-uul kale ayaa waxay shaaciyeen inay ku biireen xisbiga wadani aniguna aan ahay gudoomiyaha gobolka buuhoodle iyo madaxweyne ku-xigeenkii markaanu ku qanci weynay siyaasadda xisbiga ucid oo muddo dheer aanu ka soo tirsanayn aragnayna inuusan ahayn xisbi maanta u diyaarsan inuu noqdo xisbi xaakim waxaanu maanta caddaynaynaa anigoo ah saddexda xubnooda golaha dhaca ah inaanu baneynay jagooyinkii aanu haynay xisbiga ucid waxaana si cad ugu biiray xisbiga wadani anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool ee xisbiga ucid waxaan maanta halkan ka caddaynayaa in si dhaba anoo miirkayga iyo maankayga qaba aan ugala noqday kalsoonidii xisbinimo ee ucid uguna biiray xisbiga wadani ahaana gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka sool waxaanuna ku biiray xisbiga wadani sababa dhinaca kalena xogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif axmed ayaa qada sharaf u sameeyey arday sanadkan ka baxday jaamacadaha gobolka sool iyadoo loo mahad celiyey xogayaha maaliyadda xisbiga wadani ku hadlaya afka ardayda jaamacadda waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sidoo kale siyaasiyiinta uu ka mid yahay cabdirasaaq khaliif oo ah siyaasiyiinta gobolka aadna waxaan ugu mahad celinayaa sidoo kale waa dee maadaama uu yahay cabdirasaaq dadka dhiig intaas baa aniga hanti ii ah nimca hanti ii ah dirsaaq baa hanti ii ah jaamacadda aad joogtaan jaamacad ka tayo fiican oo aqoon-yahanka iyo macallimiinta aad haystaa way yar tahay inta badan waa ganacsi 33 jaamacadood shalay halkan laga tirinayay waxay intooda badan marka laga reebo waxaan odhan karaa haddii aan aad isu dhowro jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda camuud
iyo jaamacado cusub oo hadda jaamacad laga sameeyey magaalada burco oo cusub iyo marka laga tago waxaan isleeyahay soddonka kale intooda badan waa ganacsi tayadeeduna ma gaadhsiisna halka jaamacaddiinu ay gaadhsiisan tahay waxaanu idinku boorinayaa idinku maanta qaybtii hore waa dhamayseen qof waxaan jeclahay maxamed shaqalle universal TV nabadoonnada Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa waxa ay kaga soo horjeesteen heshiiska madaxweynaha Puntland uu la soo galay shirkadda DP World ee lagu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso maxamuud madani ayaa ka soo diray faahfaahinta warkani magaalada Boosaaso nabadoonnada gobolka bari oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa ka hor yimid heshiiska uu maamulka Puntland dekedda Boosaaso ugu wareejiyay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta odayaasha gobolka ayaa ugu baaqay ismada Puntland inay gacan ka geystaan sidii looga baajin lahaa dekedda Boosaaso in lagu wareejiyo DP World sidoo kalena waxay dawladda dhexe ugu baaqeen inay gudato doorkeeda arintan uga aadan Soomaalidu waxay kuma wadin qayrkii loo xiirayo timaa soo qoysadnaha lagu xiire hadda waxa weeye haddaynu berbere aragnay oo Jabuuti aragnay oo Cadan aragnay oo Suudaan aragnay intaasoo islaamku deganaaba ay soo martay inta maanta tacaddi ku jirto innagu waa inaynu waa dad walaalaheena la yidhi oo islaam ah waxa weeye waa la abhiyaa ninku haddii uu kugula soo socdo dhibaato waxay ninka abhi wuxuu sheeg hadduu diido abhi hadduu diido iska dhiciban waxaan qabaa in la abhiyo iyadii waxa wataba in la abhiyo taaka aanan raalli ka ahayn oo la qaadan karo male dhulkeena anagaa iska leh shirkadaasi nama gasho nooma timaado waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ee dalkan mas'uulka ka ah inay arkaan dhibaatada ka taag waa diidanahay wax naga dhaxaya ma jiraan nooma timaado waa inay doorkooda qaataan dawladda federaalka oo joojiyaan maamulada iska ordaya oo saxiido la soo galaya dalka wareejinaya waxaanu qaadacnay waxaanan u fadhiin heshiiska lala soo galay DP World in dekeddii maandeeq ee Soomaaliya oo dhan ay ka adeeganaysay in la xiro oo halkaa lagu benido taasoo asbaabteeda aanu ka dhiganayno dekedaha ay horey u soo xidhay waxaan rabaa halkaan inaan ku soo dhoweeyo dawladda federaalka ah arrimaha ay waddo oo ku saabsan mas'uuliyadda dalsaaran labada goloba waxaanu ugu baaqaynaa dalka Soomaaliya yuusan gacanta ka bixin waad ogtihiin dawlad goboleedyadu waxa ay samaynayaan waxaanu doonaynaa in lagu kala baxo oo qolo kasta mas'uuliyaddeeda qaadato shaqada shirkaddan horey baa loo soo arkay Cadan baa lagu arkay Jabuuti baa lagu arkay Berbera lagu arkay waxaad arkaysaan inay baraawa dhagax dhigatay inay halka dhagax saar u tahay oo dekedaheeda ku ceshanayso intaas ay idinka muuqata xigmad kale uma baahna iyo aragti kale inta kadib waxaan leenahay dawladda Puntland dadkan waa dadkii dawladda dhistay mucaarad maaha waa dawladooda waa rabaan mucaaradna maaha waa mu'ayid laakiinse waxay rabaan deynta waqtiga leeg oo sidaa leh oo shuruudaha leh dalka iyo dadka midna maslaxadii ugu ma jidho dekedda Boosaaso oo ummadoo dhammi ku nooshahay oo intii haatan maanta ka hor xamar intii ay xirayd ilaa xamar loo guraayay looga soo degaayay loona raraayay ilaa Itoobiya ilaa Soomaaliland ilaa gobolada dhexe ilaa meel kasta ay dekadu tahay maanta ay rabto shirkadda magaceeda la yiraahdo DP World inay xidho sidii dekadii hore u soo xidhay maxamed madani universal TV wasiir dawlaha wasaaradda duulista hawada ee Somaliland oo weheliyo barasaabka gobolka Sanaag iyo waliba saraakiil ka socotay hay'adaha Ashifaad iyo waliba SDF ayaa waxay soo kormeereen cisbitaalka guud ee degmada Cerigabo halkaas oo ay ka socoto dib u habeyn lagu sameeyo cisbitaalkaasi faahfaahinta warkani waxaa magaalada Cerigabo inooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Cabdi Xasan
wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada Soomaaliland ay weheliyaan barasaabka gobolka Sanaag saraakiisha hay'adda Shifaad iyo SDF ayaa soo kormeeray isbitaalka guud ee degmada Ceerigaabo oo ay ka socoto howlo dibidhis iyo dib u habayn laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF waxaana kormeerkaasi kadib wasiirka iyo mas'uuliyiintan wehelisay ay halkaasi tababar sare loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha caafimaadka uga fureen hotel Sanaag ee magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadii furitaan tababarkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur agaasimaha cusbitaalka Ceerigaabo Ismaaciil Talebaan Bawka iyo mas'uuliyiinta hay'adda Shifaad anagu mar walba waxaanu ogaadinaynaa wixii wax nagu soo kordhinaya wax yar ha noqdeen wax weyn ha noqdeen waayo waxaanu ku naalaa meel fog caasimadda ka fog u baahan waxqabad runtii cid allaale ciddii wax nagu soo kordhinaysa waxaana welcome soo dhawow iminkana ama tababarka ha noqoto ama waxyaalo cusub ay noo wadaan ha noqotee waxaanu leenahay ku soo dhawaada furitaankan maanta waxaan iskugu imanay inaan furno tababaro in muddo la sugayay oo loogu talagalay in la siiyo shaqaalaha cududa shaqaalaha cusbitaalka Ceerigaabo tababaradaas oo iskugu jira qaybta caafimaadka lagu tababarayo qaar lagu tababarayo xisaabaadka oo cusbitaalka qaybtiisa maamulka oo la siinayo maamulka cusbitaalka annaga Shifaad ahaan annagu muhiimadeedu waxay ahayd cusbitaalku tayadiisa iyo waxqabadkiisa mar walba kor loo qaado waxaanu maanta aynu inaguna soo aragnay ognahayna inuu halkii ugu wanaagsanaa marayo waxaa jirtay qaybo badan oo aynu ka soo gudubnay oo imaka bilihii soo socday tababaro ay dhakhaatiirtan khubarada ah inoo jooga ay bixinayeen waxa kaloo ku xigtay iyaduna oo barbar socota sida Cadnaan u sheegay nidaamkii iyo systemskii cusbitaal ku shaqayn lahaa marka annaga farxad weyn bay noo tahay warbixintayadan ama tababaradan maanta aanu idinku yeernayna qaybahaas un bay ka mid yihiin tareerinka maanta bilaabmay ee daahfurkiisa aan bilownay insha Allah shaqaalihii ka faa'iideysan lahaa iyo aqoontii ka faa'iideysan lahayd waan haysanaa waxaa gabagabadii munaasabadda furitaanka tababarkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynax oo shaqaalaha caafimaadka ku booriyay inay ka faa'iideystaan tababarkan waxaan leeyahay shaqaale weynaha guud ahaanba dad fiican runtii idinka ka shaqaalaha waxaa laydinka doonayaa fursadda dahabiyada ah inaad ka faa'iido cusbitaalba cusbitaalku ka aqoon iyo shaqaalihiisu ka aqoon badan yihiin ayuu ka adeeg wanaagsan yahay marka aad iyo aad baan idinku boorinayaa inaad dadaashaan wadaninimadiina iyo aqoontiina iyo xirfadaad halka ku barataanba aad la tagtaan cusbitaalkii Yuusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo golaha wasiirada galmudug oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Cadaado ayaa waxa ay taageereen go'aankii madaxweyne Xaaf uu ku garab istaagay xulafada Sacuudiga iyagoona sidoo kalena sheegay in khilaafka madaxda galmudug uusan saameynna uu ku yeelan doonin deegaanka faafahinta warkani waxa magaalada Cadaado inooga soo diray wariyahayaga Mubaarak Maxamuud Sheekh Aadan kulankan gaarka ay maanta yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa shir gudoominayay Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha galmudug wasiirada ayaa kulankooda waxay kaga hadleen xaaladaha siyaasadeed ee xiligan ka jira galmudug iyo in khilaafka soo kala dhexgalay madaxda sare uu saameyn ku yeelan amniga deegaanada galmudug wasiirada ayaa sidoo kale waxay kulanka ku taageereen go'aankii madaxweynaha galmudug mudane Xaaf uu ka qaatay khilaafka wadamada qaliijka kaas oo sabab u noqday in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalo hogaanka sare ee galmudug kulanku markuu soo dhamaaday ayaa warbaahinta waxa la hadlay wasiirka warfaafinta galmudug halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo maanta oo 26ka bisha September ah waxaa qabsoomay shir golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf shirkaas oo looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsaneyd safarkiisii uu ku tagay dowladda Imaaraadka Carabta uu ku tagay su'aalaadna laga weydiiyay dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa looga hadlay oo golaha wasiiradu ay isla qaateen in ay ayidaan go'aankii madaxweynaha uu ka qaatay khilaafka dowladaha khaliijka kadib markii uu si ay ku qancaan uu warbixinta u siiyey ugana hadlay sababihii ku qaaday inuu go'aankaas qaato
sidoo kale waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada xaaladda amniga ee hadda ku sugan tahay dowlad goboleedka galmudug iyadana warbixino laga dhageystay hay-adaha amniga oo aada u qiimeeyey sida ay wax yihiin waxay isla garteen golaha wasiiradu in halkeedii laga sii wado howlaha amniga isla markaantaasna la xoojiyo si hoose oo dhowna loola socdo dhaqdhaqaaqa amniga sidoo kale wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawa ayaa sheegay in kulanka wasiirada looga hadlay warqad uu ku sheegay mid looga been abuurtay galmudug sidoo kaleetood waxaa jirtay maanta warqad been abuur ah oo baraha bulshada la isla dhexmarayay taasoo sheegaysa in dowlad goboleedka galmudug ay cilaaqaadka u jireen dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo waxba kama jiraan ah dukumenti qoraalana aan ka soo saarnay haddana aan hortiina ka cadaynayo arrintaas inay ahayd been abuur waxaa weli hogaanka sare ee galmudug ka dhex taagan khilaaf ka dhashay go-aankii madaxweynaha galmudug mudane xaaf uu ka qaatay khilaafka wadamada khaliijka lamana oga halkuu ku dambay doono khilaafkaasi mubaarak maxamuud sheekh aadan telefishinka caalamiga universal cadaado mahadsanid mubaarak wararka kale ka imanaya magaalada cadaado ayaa waxay sheegayaan kulan ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug in ay xilkii ka qaadeen madaxweyne xaaf isla markaana ay kalsoonidii kala noqdeen warbixin arintani ku saabsani waa tan in xildhibaanadu codaynta ay codeeyeen haddana waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kadib markii mooshin ay ka keeneen xildhibaanadu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mooshinkii uu maray habraacii iyo habkii loogu talagalay loona codeeyey codkii waxa u dhacay sidan soo socota 52 xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale xaaf hal xildhibaan waa diiday macnaha waa diiday 2 xildhibaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas 55 kooramkeennuna wuxuu ahaa 55 marka maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bishii 9aad 2017 xildhibaanada maamul goboleed galmudug ay mooshin ka keeneen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mooshinkii uu maray habraacii ay sharcigii uu maray loona codeeyey sida aan sheegnay maanta laga bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale xaaf kalsoonidii way kala noqdeen sida sharciga xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug sidaas ayuusanna ku ahayn madaxweyne sidaas ayuusanna madaxweyne ku ahayn waxaa xilka sii haynaya waxaa xilka sii hayn doona sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo xeer hoosaadka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi halkani waa xarunta tv-ga universal uu ku leeyahay magaalada hargeysa oo habeennimadani caawa aad kala socotaan warkii tv-ga waxay noo soo socdaa qodobo kale oo aad u xiiso badan balse marka hore aynu ku hadno qadar adeega bulshada waa sharikadii xawaalada Amana Express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin ammaan gelisa wax kastoo aad ku amaanaysataan sharikada xawaalada Amana Express amaanadiina ayay idin amaanaysaa oo idin geystaa goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaaniintii horaa tiri sharikada Amana Express waa loo aayaa oo waa lagu abshiraysaha meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad xoolihiina aad ku amaanaysataan kuna dirsataan sharikada xawaalada Amana Express wixii faahfaahina ee Amana Express shaashada ka daawada Amana online adeegeeda waa loo aaye Amana online adeegeeda waa lagu abshiraystay صبح كم مبسوط يا الموجة
miiganiyo magaalooyidil mela joogaan caruur mangada loo macmiila marqaan badana furto macaan badana furto ma jeceshahay inaad si fudud oo sahlan u kobciso aqoontaada iyo garaadkaaga ma jeceshahay inaad kordhiso aqoontaada diiniga iyo tan maadiga barnaamijkan mobile educationku waxa uu ka kooban yahay diini aqoon guud english maths iyo sidoo kale physics haddaba si aad aqoontaada u kobciso iska diiwaangeli adeega mobile education garaac xidig 404 gees liiska kuu soo bixi doona ka dooro lambar 3 oo ah mobile education sii dooro lambar 1 oo ah iifur adeega sii dooro lambar 1 oo ah mare geli goobtaad ku sugan tahay intaa kadib geli magacaaga waxaad hadda isticmaali kartaa adeega mobile education ballanteenu waa kobci aqoontaada goob kastoo aad joogto qumaniya qumanow aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyey waa dukaanka loo qiray qalaabaynta guryaha loo wada riyaaqay soo booq mar qura indhaha ku qanciyo dukaanka adeega casriga EVC Plus ku kaydso ku shuba airtime oo ku adeego haqabtirka baahidan iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhammaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaada iyo saaxiibada hal kastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka telefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kilo dhan EVC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego mar kasta EVC Plus service EVC Plus ku xira Salaam Bank adoo joogo halkaaga ku kayso oo ka isticmaal hadba intii aad rabto EVC Plus service oo isticmaal hanaanka bulk payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha wixii intaas dheer hadaba kale xiriir 1 ama 1 dilkan isaga ee loo geystay saddexda Israa'iiliyiinta ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii nin isagu hubaysnaa oo reer Falastiinihi uu meel ay taagnaayeen oo dhinaca ammaanka ah uu rasaasta ku furay meel u dhow taasi oo keentay saddex kamid ah kuwa ilaaladu inay dhintaan ruux kalena markaasi uu dhaawacmo intaasi markii ay dhacday ayaa ciidamada kale ilaalada ee reer Israa'iil ee aaga ka dhawaa ay ninkii dileen oo lagu magacaabo Nimeir Jamaal oo isagu ka tirsanaa Falastiiniyiinta ruqsadda ama ogolaanshaha u haystay inay dhulka Jewishka la dejiyay ay ka shaqeeyaan talabadan iyada markiiba waxa cambaareeyay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku tilmaamay fal dhibaato badan oo ka yimid dhinaca Falastiin wararku waxa kale oo ay sheegayaan arrinkan inuu yahay midaan cusbayn oo mar walba dhibka labada dhinac uu jiro Israa'iiliyiintuna ay laayaan dadka Falastiiniyiinta ah kuwa Falastiina ay markaa ku jawaabaan wixii awoodooda ah dhinaca kale madaxa dhinaca warbaahinta ee siyaasadda garabka Fatah ee Mahmoud Abbas madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta ruux u hadlay ayaa waxa uu sheegay in dilkan ay mas'uul ka tahay Israa'iil maxaa yeelay iyada ayaa si joogta u dhibaataysa dadka reer Falastiin ma jiro urur gaar ah oo si gaar ah u sheegtay ninka wax dilay inuu ka tirsan yahay laakiin niman dagaalyahana oo islaam ah iyo rag kale oo ka tirsan Xamaas ayaa soo dhaweeyay falkan dilka Israa'iiliyiinta lagu la kacay
dilkan isagaa wuxuu ku soo beegmay xilli uu magaalada jerusalem u caga dhigtay ergeyga u qaabilsan donald trump ee gobolka bariga dhexe ee lagu magacaabo jason greenblatt kaasi oo u tegey inuu dib u soo nooleeyo wadahadalkii u dhexeeyey falastiin iyo israa'iil oo hore u burburay una istaagay bishii abriil 2014 talabadan iyada ah ee ku saabsan xurgufta u dhaxaysa israa'iil iyo weliba falastiin ma aha mid cusub laakiin waa mid haddana dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay waxaa jira ilaa iyo 36,000 oo ruux oo falastiiniyiina oo ruqsad ama ogolaansho haysta inay ka shaqeeyaan dhulka dib u dejinta jawishka ee lagu tilmaamo dhulkaasi inuu yahay midaan sharci ahayn laakiin israa'iil ay u aragto inuu yahay mid isagu sharciya ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu ka codsaday maxamuud cabbaas madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta inuu cambaareeyo falkan isaga ah waxaana kaloo uu sheegay in la baabi'in doono halka uu deganaa ninka lagu magacaabo nimeir jamaal oo macnaheedu ay tahay sida uu ra-iisul wasaaraha israa'iil sheegayo in aagga uu ka soo jeedo la baabi'in doono talabadan iyada waxa ay tahay mid sii murjinaysa dhibkii xoogga lahaa ee horeba uga dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta waxaa jira ilaa iyo 600 oo kun oo Jewisha oo la dejiyay dhulka daanta galbeed oo sharci darro lagu tilmaamay caalamka marka laga hadlayo tan iyo 1967 taasoo loo arkay inay tahay mid darra in dhul Falastiin iska leedahay la dejiyo dad iyagu Jewisha oo meel kale laga keenay. وهكذا داود انت سايان كسو غبغبينيا وركي تي في يونيفرسال habeennimadani caawa idkaga imanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa ila socodsiinaya anigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen warkan mid lamid inta ku kulmi doono waxaan idiga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh